بعد عسر يسرا إن الله سبحانه وتعالى وفضيلنا أيه حنون هذا نفسي أنتو ذا وجبضان هداد قرصتنا حنون عضوينا ويسميها على الحنون بيكانان روماتيسم بيكانان وضن حنون بيكانان على ده سكرو بيكانان بلاد برشر بيكانان كل ذلك حنون نفسي هو كيني كرابع على مدى هذا نلاشو وجه كستوحنا يكتسته وجه في عنا ينيلان كرتينا دركته إن أتكايجنا قرة dhanka xun ama si kale haddaynu u tilmaamno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka kaa hooseeya eeg unduruu ilaa man huwa asfala minkum haddaad adigu xanuunsanayso mid kaa xanuun daran unbaad arki haddii faqri ku hayo mid kaa liito kaa faqri badan baad arki ha eegin inta ku dhaantay ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato يعني وحاو النبي عليه الصلاة والسلام إن بريا إن دكتور متكا هوسيا تمام هذي وحويا إن دوغاته مر والبا نعمين ضدو هيسته مثلا قفك آن هنتي ده هيسن وحلقي أباين دركته ميدان هنتي هيسن وعافمات قبه لكن هداد ويدي سوي كله يوم حن عافمات كوا هيسته دربي أصلا فرديا جا كانوا لي تاي wuxuu arkaa inaan waxba qabin cagsigiisa waxa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo dham isugu timi wixiisi wax ka liqi kari la oo dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yiraahdo waxaad haysataba keen waa lagu caafimaadinayaa ogol hadduu kan caafimaadka qaba waxa la yiraahdo bal kuwa buka soo egtay hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo waxa nin liita iyo wax mid maal qabeenaha naftuba haysato oo arko dadka hadduu waraysto yiraahdo war bal warrama waxa odhan lahaayeen waxaanu haysano caafimaad oo siisan lahay markaasuu garan lahay inta saaran yahay laakiin aanu arkaynin waxa yiraahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran ma se arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale adigu waxa laga yaabaa inaad dayrinayso leedahay maxaan haystaa waad si caafimaad qabtaa هذا يستعافمات إذا نلاش الجبي جدوب وصيده قفك مؤمن كا وحلا فري إن أكتو ككالي تأيي ككاه صير دبتها يسته بل الدبات ده دبلو جدوية هل قصان دين تلمام دونا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحقول عي دقال كي بدر ويقول دقال كي أحد way guuleysteen markii hore gaaladina way jabiyeen way kala caymadiyeen waa kala carartay qaniimadii iyo wixii bay gurteen iyagoo qaniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhiftu dhacday saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaad ahayd inta iskaga yimaadeen isiraahay qaniimada wax ka gurta Khalid oo gaalada la socduun baa meel godoloola arko xagga dambu soo maray muslimiintii buu dhabarka kaga soo dhuftay mar labaad baa muslimiintii la jabiyay muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxa ku dhacay jab sheegaya in 7 laga dilo dib loo caymadiyo ay kala cararaanba saxaabada badba firdadkii Madiina galay taa waxa kaga sii daran iyada mushkiladu halka marayso ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyay la leeyahay nabi maxamed bal la dilo laga takhallus intii goobta ku soo hadhay markaa dagaalameysana markay maqleen nabigiiba uu dhintay ay iska fadfadhisteen إلا سعد بن الربيع أحد الصحابة وصامر عمر يرق مال فرديو إلى ورمحاق بنيسان ورسيله ومحانو سمينا دين نبي جيب اللدلي الصحابة دي وحاسة مشكلة دي كل عضي إلهي سبحانه وتعالى سيدو الدوية بكورمية مركي اللي يدي نبي جينا دي ما يسكوفر فرستين إلهي القرآن بسعودة شيء وليه هاي وحربت المامية إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلهي وحلي واحد حسطان مركزية عيسين بالليلة النبي قاعد يبدي بسوء أو النبي قلنا حق الدنبيدين كي يريي ربي وحلي وحيد كأبا المرية فأثابكم بالليلة غما بغم murugo kala dul saaran baa la yidhi ku abaalmariyay culimadu waxay yiraahdaan murugada labaad
waxay daawo u ahayd murugadii hore waayo fij'atan baa la tasxiix culamaa'i nafsi aayaddan markay sharxaya waxay leeyihiin saxaabadii markii hore way jabeen waa murugoodeen oo haziima ku dhacday mar labaad bay haddana murugoodeen markii la yidhi nebi maxamed ba dhibay tii hore waxay ku ilaabeen tan dambe oo nebigii baa dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam mar qura fij'atan waxaa caddaaday ina nebi maxamed dhibane uu dagaalka joogo goobta taagan yahay dabeetana waa farxeen farxadday nebi maxamed ku farxeen waxay ilaabeen wixii hore oo dhan idan labada hamigii hore haziimada waxa ilowsiiyey baa la leeyahay hamigii dambe ah nebigii dhimay markay been noqotayna dib bay u farxeen waxa laga daweeyey xusnigii oo dhan walidaalik baa ilaahay leeyahay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum fa ahaabakum baa la yidhi hamman bihammin maxaa loogu abaalmariyey hamiga dul saaran likay laa taxzanuu calaa maa faatakum baa ilahay yidhi si laydinka masaxo tii hore oo wixii hore a idinku dhacee mashkiladaha a u ilowdaan idan balaayooyinku way ismasaxaan iyadoo balaayo ku haysato mid kaa daran haddaad aragto taadii waad ilaabaysaa adigoo balaayo ka badan rajaynaya hadday yaraato maalan gaadha kula qallimay adiga iyo afartaadee carruuraba aad mi yarbaashay hadhow baad soo mirowda bal warraba baad tidhi markaasaa lagu yidhi yararkii labaa dhintay waxaa laga yaabaa inaad tidhahda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waayo waxaad lahayd afartiiba tage laakiin markaan laba qura waad ogashay haddii lababa soo hadhay ilaan halkaad joogtay aad ka fakaraysa waxa ahayd inaad afartaba weydo laakiin haddii lagu yidhi war labaa weli kuu nool waxaa laga yaabaa inaad u aragto musiibadu inay khafiif tahay idan masaa'ibtu waxay yidhaahdaan culammadu badhba badhka kale waa lagu daweeyaa walidaalik baa waxaa la leeyahay war dadka kale dhibtu haysta arka waxaan ku soo koobaynaa wakhtigii oo dhammaadaan malaynaya wakhtigoos ka yar daraaddeed waxaan ku soo koobaynaa waxyaabaha wax lagu daweeya waxaa ka mid ah xusnu dan qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba uu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baad tagtay dhakhtarkii baad hore u weyday waxaa laga yaabaa inaad tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo ma rabo wakhtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo uu daydayo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacyo aanu meeshaba soo gaadhin waxaa laga yaaba xusnu danni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba sii qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidaalik baa ilaahay wuxuu inaga nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni iimun waxaynu u baahannahay oo ka mida waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baa waxaan idiin tilmaamayey axad الصaalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto de marka lagu yidhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalhayo waxaasay kaa sheegayeenoo dee waxaad odhan lahayd war waa layga taagla'ayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taagla'ayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii idhi niyo waxaa la ii sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay dee anna hadiyadda baan kuga abaalguday hadiyadda tan qaada buu yidhi xantii wuxuu u arkay inay tahay dee nin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayey waayo aakhire waxaa la yidhi dee marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa oo xasanaadkaaga dadka loo qaybinaya haddii xasane laga waayana sayi-aadka idan haddaad si fiican u fakarayso depressionku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxaa ka mida baynu leenahay qofku inuu garto amal ina maca alcusri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berrito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaana wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed xusniga iyo igti'aabku marka hore qofka muslimkaa waxa keena inuu ka dheeraado oo haddaad towxiidkaaga iyo caqiidadaada iyo diintaada si fiican u rumaysato adduunka iyo qiimihiisa si dhaba u fahamtid
aakhira iyo waxa dambeeya abaalmara si wanaagsan u garatid imtixaanka rabbi iyo qadaa iyo qadarkiisa iyo adiga inta kaaga soo hagaagtay si wanaagsan aad u fahamtid tiiraanyoon maysid wax kugu dhacay ka tiiraanyoon maysid laakiin qof kasta oo xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga waa dhakhaatiir wax daweeya waxaynu qaacido soo sheegnay way isticmaalaan زايد waxay kaloo isticmaalaan dawo زايد qaarkood waxay kaloo isticmaalaan kaharaba electrical shock midna ogsoonow Soomaalida waxyaabaha ka qaldan waxa ka mid ah xanuunada qaar bay ceeb u taqaanaa qarisaa qaarna way sheegtaa war xanuunadu waa isku mid haddii wadna xanuun kugu dhaciyo haddii beer xanuun kugu dhacayo haddii neerfu ku xanuunayo haddii madaxu ku xanuuna waa isku mid midna adigu maad keenin mid walbana ilaahay baa keena waa isku mid oo mid walba cudwi jidhkaaga gobol ka mid unbaa buka ka wadnuu xanuunaya wuxuu odhanaya aniga wadnaa ay xanuunayo waa liitaa ka madaxu xanuunaya isagu qarsanaya wuxuu odhanaya waxa lagu odhan doonaa wuu waashay iyo wuu waalaya iyo hadduu yidhaha madaxay xanuunayana kuwan kale laftooda buuf isku soo ridayo odhanaya war wuu waashay iska ilaaliya war maaha waa xanuun caadi oo qofka bini aadamka ku dhaca depression-kuna waa xanuun xataa haddaan la daweynin qofku si caadi ah u dhaqmo laga yaabo 9 months meelahaas inuu kaga bogsado laakiin hadduu dhakhtar si fiican ula xidhiidho waqti yar buu kaga bogsanayaa biidn illaahi tacaala idan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa daawadiisana wuu soo dejiyey ee addoomaha ilaahayow isdaweeya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midna isku eega lama odhan isdaweeya xanuun laga yaabo 10 midho kiniina inaad qaadato inaad kaga bogsan lahayd ayuu qofku qarsanayaa ilaa intuu marada ka dhiganayo ama ka waalanayo ama uu dafiraya isku dayayaa inuu yidhaahdo war ma xanuunsanayo waxaan kula talinayaa waa xanuun bini aadamka ku dhaca xanuunada kalena la mid ah kaa calool xanuunku hayo iyo kaa wadna xanuunku hayo iyo kaa beer xanuunku hayo iyo kaa maska xanuunku haya mid walba cudwi ka mid ah jidhkiisa xanuunaya midna isagu ma keenin mid walibana daawuu leeyahay mid walbana waa la daweyn karaa dhakhaatiirta madaxa daweysaana maaha dadka daragu nacabsiiyo oo wax lagu waasho ama wax doqonkaa dhigaya ku siinay war waa daawo caadiya idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan kow qofka mu'minkii hadday masaa'ilkan khaarijiga iyagu iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakaraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakarto waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaa baan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhaha sonkarow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsigi wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan marka intaad xanuun nafsiyo fudud iska daweyn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mida waxaad u baahantihiin haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydiyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad hayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dhakhtar tagto idan ikhwati fi lcaqiida ugu horreyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga badiyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbigaa kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantahay isdaawee waa yar